gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa beeniyay in shilkii diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Uwaas Khalifa Airport ee magaalada Beledweyne 14 bishan uu sababay dameer garoonka ku jiray. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in garoonka uu ku wareegsan yahay silig ayna macquul ahayn in dameer uu soo galo, taasina ay tahay mid been abuur ah. Gudoomiyaha Cali Jeeti ayaa sheegay in baaritaan dheer kadib ay cadaatay in burburka diyaaradda uu sababay cilad ka dhacday bayloodka diyaaradda waday iyo carab badan oo garoonka qaybta diyaaradaha diyaaradii ku dhacday garoonka Beledweyne waxaa la soo gaadhay in la yiri dameer baa riday oo wadada taagnaa. waxaan rabaa inaan u cadeeyo cid kasta oo shaki kaga jiro airportka Beledweyne saasoo u xiran yahay. meesha hadda aan taaganahana waa airportkii Beledweyne ma aha دربي كلا أكتيمة تاجني. أربعة كبر من الناس وحرين يا سيل قاسا كحرين. تاسوي عضينا إن عن ضمير جرين دول كلام ملك بيجي منه وسنشرين. أرنت ديار دا سعود عضي. مركان لو ذاقي. سياب ليشن كالصوماليا ما لاحظ أسر رئيسا. وحقيقة عضيين. إن ديار ده هذا لين كان كسر دكتور. dabayl xoog badan ay jirto oo diyaaradda inay gidisa laga yaabo sababta inta uga soo degtanay sida ahayd isla markaasna laglajanse ka timid bayloodka dhankiisa ka timid iyo buurka halka yaala dhinaciisa ka timid ayaa amar ilaahay ayaa diyaaraddaas ku burburtay kuma burburin dameer uu istaagay iyo mucjiso kale oo ku dhacday midna kuma burburin. Secondly, waxaa kaloo rabaa in aan dul istaago arrinta dabdamiska. markaan waraysi dheer la yeeshay si aviationka Soomaaliya waxay ii cadeeyeen in airportka Beledweyne uu lahaa dabdamis balkii aniga xafiiska 3 bilood baan joogay iyo maalmo sababta ay ku dhacday in garoonkani oo dabdamis yeelo waaya markaan dib u raadiyay waxa si aviationka Soomaaliya madaxdu u sareysa ay sheegtay in dabdamis uu lahaa garoonka Beledweyne gacantana ay ku hayeen UN halkan ama aan kaga fadhinaa haddii arrinka ay si aviationka Soomaaliya ay cadeeyeen oo sax yahay waaba yahay in la helo dabdamiskii garoonka Beledweyne uu lahaa xafiiska boosan kaga fadhinaa haddii Allah idmo. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa ku dhawaaqay in garoonka diyaaradaha Uwaas Khalifa Airport ay ka soo degi karaan diyaaradaha yaryarka ee xamuulka qaada inta cilada garoonka ka jirtana wax laga qabanayo. in diyaaradaha yaryar ee 45 ee ka soo degi karaya dhankan magaalada ama hawada dhinacay doontaa ka soo degeen way furan yihiin oo way isku afgaranayeen garoonka Beledweyne adeegaas dib loogu soo celiyo haddii ilaahay. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, Wadan Radio and TV, Beledweyne.